madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa maanta gelinkii dambe soo gaaray magaalada caasimadda muqdisho. madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda federaalk soomaaliya. imaatinka madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ka dambeysay kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ay heshiis ku gaareen magaalada cadaado ee gobolka galgaduud. madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa markii uu soo gaaray garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde waxaa uga mahad celiyey mas-uuliyiintii ka tirsaneed dowladda federaalk soomaaliya ee sida diiran ugu soo dhoweysay caasimadda muqdisho. marka ugu horeysa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadweynaha badan oo la soo dhoweeyey oo ugu horeeyaan xafiiska madaxtooyada villa Soomaaliya, wasiirada, saraakiisha, xildhibaanada, bahda saxaafadda, wasiirada oo dhabalkaas sida Khadiijo kale aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sida dhiiran aad noo soo dhoweyseen iyo soo dhoweynta waxaan aad iyo aad baan horta uga mahad celinaynaa. marka xiga Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin fara badan, mid fayow iyo mid waalan iyo mid mucaarada iyo mid muxaafidaba Soomaaliya dib loo heshiisiyo u baahan tahay. geed sariya geed hoos weeran u fuulaa Soomaali sidii loo heshiisiin lahaa oo dib u heshiisiinta loo taabagelin lahaa. aniga waxaan u imid madaxda qaranka inaan ka wada hadalno sidii arrinta Soomaaliya oo waayahan oo dhan xoogaa aad moodo inay kala firirtay inaan isku soo celino, inaan ka wada tashano sidii dalka iyo dadka loo badbaadin lahaa. aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. war badan ma jiro, wixii jiraa waa iska iman doonaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. madaxweyne xaaf ayaa muddo hal sanaan imaan magaalada caasimadda muqdisho waxaana jiray khilaaf kala dhexeeya dowladda Soomaaliya kaasoo ugu dambeyn heshiis laga gaaray. Samiir Cabdirasaaq Umar, wararka warbaahinta magaalada caasimadda muqdisho.